بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ودرسيني لواد تفسير كي جزء عامة رمضان كان قلت لك لي وحو إنه قبل لابنيا سورة اللواد سورة النازعات درسيني هراء كسو قادني سورة عامة هي تفسير كذا sidaan horeyba usoo sheegnay suuradahani mabaadi'da waaweyn ee asaasiga ah ee diinta ayay ka hadlayaan mabaadi'da iimaaniyaadka iyo qodobada diinta ugu muhiimsan bay ka hadlayaan marxalada ay soo degeena oo marxaladii nabigu sallallahu alayhi wasallam uu Maka joogay la taqriirinayay gaalada dood badan iyo dagaal lagu la jiray sidii looga dhaadhicin lahaa mabaadi'dan asaasiga waxay ku bilaabanaysaa suuradani dhaar ilaahay dhaaranayo tabaaraka wa tacaala sida saxiixa malaa'igtiisa sifaad ay leeyihiin iyo shaqooyin ay qabtaan ayuu ilaahay tabaaraka wa tacaala ku dhaaranayaa arinta dhaartaasi uu u dhaaranayana waxa weeye isa soo saariddu inay tahay xaqiiqo jirta oo shaki ku jirin wuxuu rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala marka wannaasicaati malaa'igta siibtaan ku dhaartay nafta gaalada iyo munaafiqiinta qarqan kumaanshoobid ku siibta bimacnaa si adag u siibta oo ay ku maanshoobayso oo ay hawl adag ka qabanayso qarqiga sidaa way macnaha wannaashitaati baan ku dhaartay malaa'igta bixinaysa nafta mu'miniinta tartiib u bixinaysa nashtan bixin yani tartiib bay u siibaysaa sida xarig ama guntin si tartiiba sirqinta looga siibay oo kale si tartiibay u bixinayaan nafta mu'miniinta wasaabixaati baan ku dhaartay malaa'igta dabaalata hawada sabxan dabaalasho malaa'igta ilaahay tabaaraka wa tacaala hawadaasay dabaalanaysaa waa qaybo malaa'igta kamid ah oo hawlo loo diray ayaa hawadaas dabaalanaya fasaabiqaati baan ku dhaartay malaa'igta hormaraysa oo iimaanka iyo khayrka iyo wanaagga u hormaraysa sabqan hormarid oo goobaha khayrka iyo wanaagga iyo iimaanka iyo taacada ayay u ordaan u hormaraan falmudabbiraati malaa'igta maamushaan ku dhaartay amran arin maamusha arrimaha kownka malaa'ig buu ilaahay u diray oo maamusha kuwa nafqaada iyo kuwa dhibicda iyo daaq iyo dalaga maamusha iyo kuwa waxyiga ilaahay keena iyo kuwa muxuu ahaay masaa'ibta iyo hawlahan loo diro iyo malaa'igta hawlahan adduunka ilaahay u diray oo kala wada iyagaasaa marka kala maamulaya amarka ilaahay bay fulinaya intaasaan ku dhaartay buu rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala halkaa marka waxaa ku jira muqsamu calayhigii shaygii lagu dhaaranayay oo ah latubcathunna waa laydin soo saari in muqsamu calayhiga lagu dhaaranayo uu sidaa yahay taqdiirka waxaa laga qaadanayaa hadalka dambe yowma tarjufu araajifatu tatbacuha araadifa waxaa laga hadlay yani waxa weeye isa soo saaridii ayaa laga hadlay marka meeshaasa waxaa ku jira shaygii lagu dhaaranayo wannaasicaati qarqan nabigaa sharxay sal alla alayh wasalam wanaashitaati nashtan sidoo kale wuxuu inoo sheegay nafta xun markii jidhka laga siibayo inay malaa'igtii nafta qaadaysa u imaanayso oo ay ku leeyihiin naftan xunay yaa ayatuha annafsu alkhabiitha naftan xunay soo bax waxaad u soo baxdaa ilaahay cadhadiisa iyo cadaabkiisa iyo cuquubadiisa u soo bax markay sidaa ku yidhaahdaan bay marka jidhka ku kala cararaysa jidhkay ku kala baahaysa markaasay malaa'igta intay qabtaan bay xoog u soo dhufanayaan way garaacayaan ruuxii bay gadaashay dhinacyaha ka garaacayaan si ay naftii xoog uga saaraan taasaa marka waxaa laga wadaa shaqada adag ee malaa'igtu ay qabanayso markay nafta ka saarayso gaalka iyo munaafiq iyo dadka xunxun taasaa waxaa laga wadaa yani wannaasicaati qarqan malaa'igta nafta xun siibta
gharqan maanshoobid si adag u siibta oo muxuu ahay shaqo adag ka qabanaysa way macnaha wannaashitaati nashtana waa dadka mu'miniinta iyo dadkii wanaagsanaa nafta iyagana marka laga qaadayo malaa'igtii qaadaysay baa la hadlaysa waxay leedahay naftan wanaagsanay yaa ayatuha nafsu tayyib naftan wanaagsanay soo bax waxaad u soo baxdaa ilaahay naxariistiisa ridihiisa u soo bax baa la leeyahay markaasay si tartiiba iskeenaysaa jirkay tartiib uga soo baxaysaa markaasuu malakul mowt qaadayaa marka taana waxaa tilmaamaysa wannaashitaati nashtan waxaa laga dhigay sidii xadhig guntanaa oo suryadii siriqintiisa ayarsaa loo furayoo sidaa si tartiiba u kala furmay ayaa laga dhigay marka si tartiibay u qaadayaan wasaabixaati sabxan fasaabiqaati sabqan waa malaa'igtaasi hawada dabaalanaysa iyo kuwa khayraadka u kala orotamaya u dhaqtamaya falmudabiraati amran waa malaa'igta kownka maamulayse ilaahay amaradiisa fulinaysa kownka ku fulinaysa ayaa laga wada intaasaan ku dhaartay buu alla yidhi tabaaraka watacaala maxay tahay waa laydin soo saari waay arrintan aad ka muransantihiin dooda ka qabtaan xaqiiqo dhici doonta waay yowma tarjufu araajifatu goormay dhacaysaa waay yowma maalin baa laydin soo saari tarjufu ay gilgilanayso alraajifatu tii gilgilanaysa tatbacuhaa xaal ay raacayso alraadifatu tii daba socotay ee fangalaysay yowma maalinkaasi yani mid gilgilanaysa ayaa imaanaysa kownkana gilgili doonta yowma tarjufu araajifa waa afuufista hore ee buunka waa kaan ku soo marnay suuratu cama darsigeenni shalay yowma yunfaqu fi suur buunkaa la afuufi doona afuufistaasi waa 2 goor marka horaa la afuufayaa waa markaasi adduunka la gebagabaynayo ee la halaagaya la baabi'inayo mar labaad baa la afuufi doonaa markaana waa marka la soo noolaanayo dib loo soo noqonayo marka hore ee afuufista hore waxaa dhacaya gariir iyo gilgilasha dhacaya wax walba waa ruuxanaya qayladaasi markay dhacdo wax walba waa ruuxaya marka yowma tarjufu araajifa ayadii baa gilgilanaysa ruuxanaysa makhluuqaadkii oo dhanna way ruuxaysaa waa gilgilaysaa tatbacuhaa waxaa raacaysa oo ka dabagelaysa alraadifatu tii daba socotay muddo markay ka soo wareegto ilaahay uu qadaray ayaa haddana afuufistii labaad ee daba socotay baa dhici doonta oo mar labaad buu malagu afuufi doonaa buunka afuufaya markaasna waa markii la soo noolaanaya markaasay dadkii waxaad arkaysaa iyagoo wada taagtaaganoo nin walba meeshii ka soo baxay quluubun qalbiyaal see wax u dhacayaan maalinkaa isaga ah quluubun qalbiyaal yowmaidin maalinkaasi waajifatun waa mid baqaysa waa mid yani walwal iyo baqitaan iyo aada u qasan waay waa quluubtii dadkii xumaa ee aan soo shaqaysanin qalbiyadoodii waay xaaladii howlka maalinkaa taagan ayay la baqayaan absaaruhaa aragyaalkeedu khaashicatun waa mid dullaysan qalbiyadaasi ruuxii baa laga wadaaya araggiisiiyo indhihiisuna waa dullaysan yaho waa fooraraa yani waxa jira ee socda ayuu sooxoba la fiirin karinba sidaas daraaddeed indhihiina waa dullaysan yihiin quluubtiina walwal iyo cabsi iyo qas baa buuxiyey way qasantao idraab shiddat lidraab waay ayib marka wejiyo iyo qalbiyo saas waaye yani jirkii qalbiga dhibaatada haysatay walwalkii walbahaarkii rafaadka haystaba jirkiina ka muuqdaayo indhihii baa fooraro dulaysan ruuxii oo dhan waa dulaysan yaquuluuna waxay leeyihiin tani waxaa laga hadlayaa marka maxaa sidaa loogu galay laanna adduunka markay joogeen mayna rumaysnayn mana ayna usoo diyaargaroobin kumana ayna talagelin in layska daba imaan doono bal way inkiri jireenba in laysa soo saari doono yaquuluuna waxay leeyihiin oy dhihi jireen waay ainaa anagu lamarduuduuna kuwa la celinaya miyaanu nahay filxaafirati jidkii hore miyaana lagu celinayaa ama filxaafirati qubuurta dhexdeeda inagoo qubuurta ku jirna miyaana la celinayaa oo ma noloshiibaa dibna loogu celinaya ama xaafirada waxaa la yidhaahdaa wadiiqada jidkii aada soo martay ee lugtaadu markii hore soo raadaysay ee dhulka soo muxuu ahaay ee soo saamayso athar kaga timid kaasaa la yidhaha jidkii horeen soo marnay oo noloshii ahaa aan ka nimid miyaa dibna loogu celinayaa
أإذا كنا ممركان أهانا نلعلينيا عظاما لفا مركان أهاني نخرة أو باليودي رابخذي أما بلشي لفوه بني آدمكو markay muddo joogaan way baaba'ayaan way jilcayaan way bololayaan way raabaqayaan kadib way duleeshamayaan way baaba'ayaan marka dhulkii baan galay qabri baan galay carradii baan cuntay lafahanagi waa baaliyoobeen jirkii carrada la kala tagtay dhacaankii warkiisa iska daa ma markaanu saan noqonay kadib aan la soo celin karaa say ku dhici kartaa yani wax aqligu aqbali kara ma ahabay leey طيب أإذا كنا ما مركان أهانو عظاما لفورنا خيرة oo raabaqday ama boloshay oo baaba'day ma markaas kadib baan la soo celinaya qaaluu waxay yiraahdeen tilka taasi soo celintaas idan marka haday dhacdo karratun wa celin khasiratun oo khasaartay hadayba dhacdaba waa midaan loo soo diyaar garoobin waa midaan lagu talagelin waa midaan waxba loo tabcanin sidaas daraadeed waa mid lagu khasaaray waa khasaarnay way macna ficlan waa khasaareen لأن وحويان ننكي أن وحصو طبعا ما ننكاس وخسارتين تلك تاسبينها إذن مركز كرة وعلن خاسرة بمعنى أولو خسارة بمعنى راضية أو كلام متاح ويعني مد خسارتي وي علن تا خسارتي ولو خسارة بكولا الله تبارك وتعالى مركب أو جوابي يعني وحن أيق الله أذك أو علنتي صنولينتي نورش الضنبه ayagu wax adag ay u haystaan siday u fududahay baa loo sheegi markaas Allah wuxuu yiri fa inma hiya iyadu karradu soo celintu zajratun wa qaylo waahidatun oo mid ah wa qaylo hal mar'a shaqo badan uma baahna hawl badan uma baahna kaliya wax weeye inuu malagaasi la diray buunka afuufo qayladaasi dhacdo amarkaas lagu soo wada kacaya khalaas وهل قيل واي وملقاس قيليو وحكي إذنك بصادوا هاي ستان ما فإنما هي إيد زجرة وقيلو يعنان واحدة أومدة الضومدة اللو يريا كدي بن وحل لصوبها أمر إلهي وصوبها هذه عدي دي كرتمجي سمركة ولا سوق القلية فإذا مركابة قيل داسي مركي دعضو فإذا مركابة هم أيقو خلائق دي بالساهرة dhulkii cadaa ee sinaabay ku simeeyay ku sugan yihiin saahirada waxa la yiraahdaa al-ardu al-bayda al-mustawiya dhulka cad ee siman baa la yiraahdaa in calaamo lahayn waana kan nabiga xadiiskiisa ku yimid sallallahu alayhi wasallam yaani dhulka xisaabta lagu qaadi doono ee la isku soo saari doono ardul bayda khaliya kal khubz an-naqi wa dhul banaan oo cad oo siman oo sidii aad moodo yani kibis ama canjeero cad oo kala aad moodaa dhul noocaas oo kala baa la isku soo saari doonaa saahirada taas la yiraahdaa marka waa arladii yani sinayd طيب فاذا مركبهم iyagu bisaahirati ama waxa la yiraahdaa saahirada dhulka korkiisa sidana waa tafsiir oo waliba ibn kathir ul inta badan baa sida qabta dhulka korkiisa la saahirada hadii la yiraahdo bimaana dhulka hoostiisa ay ku jireen dhulka hoostiisii baa laga soo saaray oo qaylo lagu soo saaray kadibna dhulka korkiisii bay yimaadeen faydahum bisaahirati dhulka korkiisii bay markaa joogaan sidaas way arintu arin adag ma ahaba waxa idinka aqli ahaan idin la fog idin la adag wax adag ma inta kadib ayaa Allah tabaaraka wa taala halkan waxa marka laga guda galay qisadii nabiyullaahi Muusa iyo Fircoon dhaxmartay yani tusaale loo soo qaadan mar wayaan qisooyinka quraanka nabiga lagu sabirsiinaya oo waxa la leeyahay waxan ku haysta wax lamida ka daran nabiyo horu soo maray dad horu soo maray way sabreen adiguna sabir mid labaad wayaane waxa darsi la siinaya dadka kibre ee isla weyn ee sida Fircoon oo kale iyo dhaqankiisa la iyagana digniin bay u tahay umadana duruus ba ugu sugan hal ataaka makuyimid ayu alla yiri tabaaraka wa taala hadithu Muusa nabi maxamed oo makuyimid hadithu Muusa warkiisii ma ku soo gaaray id waqti ugu war aha naadaahu u dhawaaqay Muuse rabbuhu rabbigi u dhawaaqay bil wadi togibu ugu dhawaaqay al muqaddasi ee la daahiriyay tuwan magaciisa tuwa la dhigi jiray maxaa loogu dhawaaqay Muuse halkaas loogu dhawaaqay togi dahirna
halkaa isagoo jooguu rabbigii u dhawaaqay muxuu ku yidhi idhab tag baa layidhi ilaa fircawna fircoon xaggiisa aad maxaa yeelay innahu fircoon tagaa waa qooqaye qooq iyo kibir meel buu isla tegay bal fircoon gaadh baa layidhi faqul waxaad tidhaahdaa ood isaga ku tidhaahdaa hal laka ma kuu sugnaaday fircoonow ilaa an tasakaa inaad isdaahiriso war waad wasakhaysan tahay kufri iyo gaalnimo iyo akhlaaq xumo iyo diin xumo waad wasakhaysan tahay ma isdaahirin oo iimaan iyo taaco ma isku daahirini ayib wa ahdiyaka aan ku hanuuniye ilaa rabbika rabbigaa xaggiisa aan kuu hanuuniye oo fatakhshaa aad ka baqdo inaad isdaahiriso ma rabtaa aniguna aan rabbigaa ku tusayo meeshaad u mari lahaydee sidii aad isu daahirin lahayd oo markaa aad ka baqdo arrintaasina yahu diyaar mau tahay waay fa araahu wuxuu tusay halkaasi waxaa ku qarsoon intaa markuu u jeediyey wuxuu ku yidhi yani wax weeye maxaad haysaa wuxuu ka dalbaday caddayn kadibna fa araahu wuxuu tusay nebi muuse tusaya araa muuse wuxuu tusay hu fircawn alaayata mucjizadii alkubraa ee ugu weyneyd mucjizaad fara badan baa nebi muuse la siiyey oo fircoon markii loo diray loo sii dhiibay laakiin waxaa ugu weyneyd ushiisii abeesada ama maska isu bedelaysay taasaa ugu weyneyd tiibaa marka la siiyey tiibuu tusay marka tiibuu hordhigay markuu hordhigay meeshii la rabay inuu ilaahay ku aqoonsado isdhiibo oo waxan kadaata u hogaansamo fakadaba waa beeniyey mucjizadii iyo aayaddii iyo muuse warkiisiiba waa beeniyey waa casaa waa caasiyey amarkii loo soo jeediyeyna waa ka tala baxayoo waa caasiyey uma markaa kadibna adbara wuu daba jeediyey wuu sii jeesaday yascaa asagoo degdegaya yascadaasi laba macno wey ama meehee markii ushii uu tuuray muuse calayhi salaam oo usii abeesho ay isu rogtay ayuu lafahaga la baxsay markaasuu carar bilaabay yasca mise waxa weeye yascadu waxaa laga wadaa wuxuu ka shaqeeyey oo u degdegay siduu u burin lahaa waxan uu la yimid muuse calayhi salaam faxashara markaasuu soo kulmiyey orod buu marka galay iyo dadaal faxashara wuxuu soo kulmiyey saxaradiisii buu soo kulmiyey yacni degmooyinkii iyo magaalooyinkii buu dad u kala diray wuxuu yidhi hala ii keeno culimadii sixirka hala ii keeno faxashara waa soo kulmiyey marka uu soo shiriyey fanaadaa waa dhawaaqay qowmkiisii buu isu keenay shir weyn buu qabtay markaasaa wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi markuu isu keenay buu dhexdooda ka dhawaaqay waa khudbaynaya hadal buu jeedinaya faqaala wuxuu yidhi ana anugu rabbukum rabbigiinnii baan ahay alaclaa ee ugu sarreeyey baan ahay waxaan uu muuse meelaha ku sheegayo wax jira meehee rabbi iga sarreeya ma jiro anaa ugu sarreeya rabbiyada rabbigiinnii ugu sarreeyey baan ahay buu yidhi ayib sidaasi marka uu leeyahay mar kaleetana wuxuu yidhi maa calimtu lakum min ilaahin hayri maa calimtu lakum min ilaahin hayri ilaahaan aniga ahayn idinma ogi mar kalena saasuu yidhi ayib faakhadahu allaahu ilaahay baa marka qabtay markuu sidaa sheegtay faakhadahu allaahu allah qabtay ninka la yidhaahdo fircawn nakaala alaakhirati midii dembaysay cuquubadeedii lagu cibro qaadanayay ayuu ilaahay ku qabtay waluulaa wanakaala aluulaa midii hore cuquubadeedii lagu cibro qaadanayayna ilaahay baa ku qabtay yacni wax weeyaan midda hore cuquubo waxaa la marsiiyey dadka kale darsi iyo waxay ku cibro qaataan u ah midda dambena sidoo kale maxaa laga wadaa midda hore iyo midda dambe sida uu rajaxay ibnu kathiir caleyh raxmatullahi wuxuu leeyahy waxaa laga wadaa tan horena tan dambena waxaa laga wadaa aakharo tan horena waxaa laga wadaa adduunyada oo adduunyadana de waa kii la halaagay oo isagii ciidamadiisii wixii la socdayba badda la raaciyey aakharana haddana qabriguu ku cadaaban yahay siduu qur-aanku sheegay aakharana cadaab buu ku leeyahay labadaaba cuquubadood midda adduunka lagu mariyey iyo ta aakharo la marinaye laga sheekeeyeyba labadaba waxaa ku sugan cuquubo lagu cibro qaato nakaalka waxa la yidhaahdaa waa biijin bay dhahaan waa cuquubo dadka lagu sajrinayo cuquubo loogu talagalay dadka kale inay ku waana qaataan
ويدرسي كقاتان ويمعنى طيب إن في ذلك أرنك دحدي سوحا كسوغا لعبرة عبرة قادشو لمن عد بيوسوغا يخشى إلهي كبقية فرعون وحل لمري والكري واي إلهي نمو شاكتي مالو سنشوغين بو إسقارسيي حقي بو ديدي ومدح أضيقي ميشاسو كدن بي ودرس مرك إن في ذلك لعبرة لمن يخشى عدي بقى يصور ربطة إني درس قادته أو أي وح فهمته أو سننك إلهي يسيدا وح أصعدان إني فهمت الروحي دون ياي درسي بقى أقصوغان ونولشي سو وح كقاته سيدا سوي معنا ميشاسي مرك قصة داسي ولا صوكوبي لكن أيضا فافاسن بالقرآن كما يلك لكتمت oo aad buu quraanku ugu dheeraada qisada Muuse iyo Fircaun aad baa loogu dheeraada laana duruus badan baa ku jirta meeshaasi qisada wax yar waxaynu dul istaagaynaa usluubka iyo qaabka uu nabi Muuse ula hadlay Ilaahay amray inuu Fircaun ula hadlo yaa wuxuu yahay usluul cajab leh Fircaun ninka arkaysa yani wax uu jabbaarka gaalka mujrimka ilaahnimada ba sheegtay ayaa hadana Fircaun marka Muuse loo diray wax Muuse hadalka u dabci waxaad ku tiraahdaa hal laka ma kuu sugnaaday ma heli kartaa ma rabtaa ma jeceshahay yaa ilaa anta zaka inaad isdaahiriso war isdaahiri Muuse ka bilaabay war ma rabtaa ma danaynaysaa sidaa ku dhibaale oo aniguna aan ku tuso dariiqi ahdiyaka ila rabbika halka waxa laga qaadan ruuxa markuu niyo alla yimaado inuu isdaahiriyo ishagaajiyo haduusan cid gacanta qabato helin oo nabi ilaahay nin culimo wax garanaya haduusan helin cid gacanta qabata hidaayan raba kaliya waan jeclahay kuma filla waa inaad hesho wa ahdiyaka ila rabbika dariiqi nabiyada marka in gacanta lagu qabto waa in anbiyada iyo dadka jidkooda haya waa inay markaasi ku tusaan sidaad yani isu daahirin lahayd fatakhsha oo ka dambeysana waxa laga qaadan bay dhaheen ruuxa ilaahi kama baqi karo haduusan aqoonin inma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama ilaahay waxa kan baqa dadka yaqaana saas way macna marka hadalka dabacsan ee ku dhaha la yiri waa sida asalka oo dadka marka dacwada diinta loo gudbinayo saasa asala faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha suratu taha fir'aun marka adu tagtaan Muuse iyo Haaruunow hadal dabacsan oo jilicsan ku dhaha waxa laga yaabaa inuu waana qaato inuu ilaahay ka baqo waa suurtagal yani hadalka u dabciye yani usluub saxsan inta markii qisadaasi laga soo hadlay ayaa markale waxa dib loogu noqday mas'aladii ahayd isa soo saarida iyo nolosha dambe inay jirto aad buu quraanku u dul istaagaabaan ilaana furo way mas'aladaas haday bar rumeeyaan in la soo noolayn doono mabaadiida kalena way qaadanayaan taas marka aad loogu dul istaagay tiiba marka dib loogu noqdo adiladeedii baa la tusaya ilaahay inuu awood u leeyahay inuu dib u soo nooleeyo wuxuu alla yiri antum idinka miya kuwii inkirsanaa isa soo saarida la hadlaya oo Quraysh iyo gaaladii carabta u badnaa antum idinka miya ashaddu adayg badan khalqan xagga abuurista am amase as-samaa'u mise samadii waa xagga abuurista idinka iyo samada kiineeba adayg badan طبعا jawaabtu way iska cadahay samada naga adayg badan waay samada naga weyn abuurista samada ayaa ka weyn anaga abuuristanada hadaba haday sida tahay banaaha alla waa dhisay marka samadu haday idinka abuurkiina ka adag tahay allaha iyada idinka adag abuuray idinka inuu idin soo celiyo idin abuuro maxay ku tahay waxay la mid tahay la khalqu samawati wal ardi akbar min khalqi an-nas samaawaadka iyo dhulalka abuuristooda ka weyn bini aadamka abuuristiis sidaas way macna rafa'a alla uu kor yeelay samkaha wuu dhisay alle rafa'a wuxuu kor yeelay samkaha qaradeeda samkiga waxa la yiraahdaa waa inta lagu dhex socon karo waa iyada dhexdeeda intay macnaha qaradeedu leegtay macna ama koreynteeda labada waa la yiraahdaa rafa'a alla waa kor yeelay samkaha qaradeeda oo samadan aan arkayno yani siday u sareyso iyo jirmigeedii qaradeedu intay leegtahay wax la qiyaasi kara ma fasawaaha markaasuu alla simay tabaaraka wa taala markuu kor yeelay iyo hadana simay dulduleel male oo jeex male oo meelo kala dheer male ayada dhan waa siman tahay si ilaahay wuxuu u sameeyay tabaaraka wa taala jabadan oo hadana kaaga tarana intaas oo milyan oo sano iyadoo jirta
ayayna haddaba yaraatay ayna lahayn yani wax weey jiltilaac iyo meelo ribeer u baahan oo dayactir u baahan iyo midna ma laha sidaas weey fasawaaha alla waasimay طيب واغطش alla waa mugdiyay laylaha samada habeenkeedii wa akhraja wus bixiyay duhaaha barqinkeedii iftiinkeedana wuu bixiyay habeenkii ilaahay mugdi buu ka dhigay maalintiina iftiin buu ka dhigay samada loo tiiriyay leena wax weeye qorraxda oo ay iftiinku ka yimaado ayaa samada jirta qorraxda marka la waayo dayaxna la waayana waxa iimaanaya mugdigi baa iimaanaya sidaas way marka wax weeye wa aqtasha wa mugdiyay laylaha samada habeenkeedii wa akhraja wa iftiimiyay wa akhraja wuu saaray oo wuu iftiimiyay duhaaha maalinteeda duhada barqinka laga wada waa xilliga yani iftiinku ugu daran yahay laakiin maalinto dhan baa laga wada wal arda dulkina ba'da dalika kaas kadib dahaha alla waafidiyay markuu samadii rabbi tabaaraka wa taala dhisay oo qaradeeda kor yeelay oo uu simay oo habeenkeedii iyo maalinteedii habeeyay marka kadib ayuu alla tabaaraka wa taala dhulkii fidiyay halka waxa ka muuqata marka dhulka fidintiisu in samada uu ka dambeeyay fi surati fussiladna alla wuxuu ku cadeeyay qul aynakum latakfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi yawmayn ya ayatka ka dambeeyay waxa uu alla ku cadeeyay tabaaraka wa taala in yani wax weeyaan iyada la abuuray dhulka la abuuray samaduna ka dambeysay halkana samadu inay horeysay bi aayadan tilmaamaysa culimada marka ibn Abbas baa la weydiiyay turjumaankii quraanka ayaa la weydiiyay wuxuu ku fasiray oo isku waafajiyay labada aayadood wuxuu yiri xagga abuurista waxa ku horeeyay dhulka laakiin asagoo isku duuban oo la fidinin buu yaalay kadibna samaawaadkii buu alla abuuray oo dhameystiray dhulkii oo fidsanayn laakiin abuuran baa loo yiin markaas la fidiyay xagga fidinta marka dhulka ku dambeeyay xagga abuuristana dhulka ku horeeyay dhulka la abuuray laakiin lama fidinin inta la fidinin baa samada laga shaqeeyo la hagaajiyay oo la simay marka kadib baa dhulkii la fidiyay saasa la isku waafajinay akhraja alla wuu soo saaray fidintaas marka tafaasiisheeda la galay dhulka see loo fidiyay akhraja alla wuu soo saaray minha dhulka xaqiisa wuxuu ka soo saaray ma aha biyaheedu ka soo saaray wabiyasha iyo ilaha durdurka iyo biyaha dhulka ka soo baxo dhan wa mar'aha daaqeedina wuu ka soo saaray waxyaalaha la cuno hada mar'aha waxa la yiraahdaa inta badan wax xoolaha iyo yani xayawaanku daaqaan baa la yiraahdaa laakiin culimada tafsiirka qaar baa hadda waxay leeyihiin waxa laga wadaa hadda wixii la cuno dhan ama xoolaha cunaan ama bini'aadanka cunee waxaana dhulka ilaahay waa ka soo saaray tabaaraka wa taala wal jibala burihina arsaha alla waa qutamiyay waa ku qutamiyay yani markii dhulkii la fidiyay oo la hagaajiyay ayaa ilaahay buuraha saaray waa kaynu soo marnayo buurahani waa dhakawiyo dhulka haya si aysan dhulku u dheeliyin ama aynan aadamaha aynan ula ruuxanin oo aysan idiraab ugu dhicin buurihi baa marka la saaro la qotomiyay maxaa intaas oo dhan loo sameeyay samadii oo sanqaafa dhulkii oo goglan korkiisa wixii loo baahnaa la saaray buurahan oo lagu dheeli tiray waxa soo dhan maxaa loo sameeyay biyaha iyo waxa soo baxay dhulka soo baxay mataacan raaxayn lakum idinka laydin raaxanaya saa loo yeelay facala dalika sidaas oo alla yeelay mataacan raaxayn daraadeed lakum idinka laydin raaxaynayo iyo wali an'aamikum xoolihiina idinkiyo xoolihiina xoolahan idinka ku nool xoolaha idinka dhaqdo oo ku nool natiijadu waxay iimaanaysaa in idinka in laydin raaxiyo waa idinka laydin raaxaynaya tayib intaasina waxa lagaga soo hadlay Allah tabaaraka wa taala inta sameeyay inuu idinka idin soo celiyo marka dhimataan kadib maxay dhan tahay waxay fududahay Soomaa waa la qancinaya waxa loo yimid marka kadib markay timaado tan laga waramayo qiyaamadu markay dhacdo oo yani wax weey marxalad la soo saaraya xaalku seeway see la noqonaya dadku say u qaybsami doonaan maxaa adduunkan ku dhici doona akhbaarta qaybiga ah baa layna siinaya فإذا قرتي جاءت أي تمادو الطامة مصيبتي سيدتي
musiibada sidatay masaa'ibta kale oo dhan ka sidata ayaa la yidhahdaa ataama. waxaa la yidhahdaa addaahiya musiibada aan la kari karin, la suuraysan karaynin, oo kuwa kaleo dhan ka sayid calaynayso ka sidata ayaa la yidhahdaa ataama. faidaa goortii jaaad ay timaado ataamatu musiibadii sidatay markay timaado ee kuwa kaleo dhan ka sidatay waa qiyaamada waay. wasaacatu adha wa amar waa kii ilaah yidhi alkubraa ee ugu weynayd. musiibadii sidatay ee haddana ugu weyn masaa'ibta ugu weynayd markay timaado yowma maalin ay timaado yatadakaru uu xusuusan doono alinsaanu insaankii maa saca wuxuu shaqeeyey wuxuu qabtay ayuu xusuusan doonaa. ilan hadda waynu halmaansannahay axsaahu llahu wanasuuhu waay. allah koobay oo wax walba waa qoran yihiin, laakiin inagu waan halmaannay. maalinkaa laakiin wax kastood halmaantay ood samaysay waa lagu soo hordhigi diiwaankii, markaasaad xusuusani wallaahi camalkan waa kii aan maalin heble sameey meel heblaan ku sameeyey. wixii oo dhan baa marka xusuusan doontaa. yatadakaru linsaanu maa saca camalkiisiibuu xusuusanaya. waburizat waa la muujiyey aljaxiimu naarta jaxiimo liman cid baa loo muujiyey yaraa arkaya. khalqigoo dhan waay, yani ciddii inay aragta rabto oo dhan bannaankaa la keenay. bannaankaa la keenay, waa la soo muujiyey, wax qarsoon ma aha. jaxiimo bannaankaa la keenay. leanna wax weye marka addoommada lala xisaabtamayo qiyaamada la tago, sida xadiiska nebiga ku sugan sal alla alay wasalam, ayada oo 70,000 hoggaan lagu hayo ayay soo fakfakanaysaa, oo khalaa'iqdan meesha la xisaabinahayayba rabtaaba inay leeftaba oy qaadato. marka waa la soo muujiyey. fa amaa man ruuxii sidaa markay dhacdo see la noqonaa marka? fa amaa man ruuxii taqaa qooqay, adduunka markuu joogay buu qooqay, waa kibray, waa isla weynaaday, waa la keri waayey, xadhiguu goostay. fa amaa man taqaa ruuxii qooqay oo wa aahara doorbiday alxayaata noloshii addunyaa ee dhoweyd, waa tan aynu joogno ama liidatay, taasuu doorbiday oo uu doortay oo qaatay. wuxuu ka doorbiday midda dambe, ama diintiisa iyo aakhiradiisiibuu ka doorbiday oo middanuu ka doortay. middanuu dhaldhalaalkeeda iyo macmacaankeeda iyo waxeedaasuu u xishay. tii aakhare iyo wixii gaadhsiin lahaana taasuu ka doorbiday oo ka hormariyey ruuxa isaga ah. fa ina aljaxiima naarta jaxiima hiya iyada ayaa alma'waa hoyaad ah, hoy kale ma leh. halkaasuu ku dambaynaya jaxiimo ayaa hoygiisa ah, walciyaadu billaah. kaasi waa sidaa waay, waa ruuxii qooqay aakhiradiisa iyo adduunkiisana adduunkiisa doorbiday oo halkaasi u batay. wa amaa man ruuxii khaafa baqay maqaama rabbihi rabbigii hor istaaggiisa ka baqay, inuu ilaahay hor istaagayo oo la kulmayo oo la xisaabtami doono oo abaal marin doono, isagoo keligii ah oon turjumaan u dhaxaynin ayuu ogyahay. markaasuu ku talagalay, waa isdiyaariyey, baqdintaasuu qaaday. wa amaa man ruuxii khaafa baqay maqaama rabbihi rabbigii hor istaaggiisa ka baqay, oo wanahaar reebay annafsa naftiisana ka reebay can ilhawaa xumaanta ay jeceshahay. hawada waxaa la yidhahdaa waxyaalaha ay naftu iska rabto. jaahilnimada way iska rabtaa, waxay iska rabtaa gaalnimada, waxay iska rabtaa dulmiga, waxay iska rabtaa akhlaaq xumada, waxay iska rabtaa caajiska iyo inay faraa'ida dayacdo, waxay iska rabtaa munkaraadka iyo macaasida inay jiidho. waxaa hawadiisu ay rabto ruuxii ka celiyo ka xakameeya. fa ina aljannata jannadii hiya iyada ayaa alma'waa hoyaad ah, iyadaa hoyaadkiisa ah, meesha uu ku hoyanaya halkaa way. labadaa unbaa loo dhaxaynayaa. qaarna xaggay ku hoyanayaan, fariiqun fi ljannati waay, qaarna xaggay ku hoyanayaan waa fariiqun fi saciir. labadaa unbaa loo kala bixi doona, lagu kala dambayn doonaa. xataa qolo dhexdhexaada mararka qaarkood hadday jiraan caraafa, marka dambe xagg iyo xagga may kala badanayaan. saas way macnaha. ayib, dhinac bay u badanayaan way macnaha. marka waxaa la doonayaa inay cabsina kugu jirto, naftaadana aada xakamaysood xumaanta ka xakamayso ayaa loo baahan yahay. yas'aluunaka intan dambe marka suuradda khatimkeeda waxaa lagaga hadlayaa su-aal baa imaanaysa. hadday qiyaama jirto oo aakhara jirto oo laysa soo saarayo, goormo weye? wakhtigeeda ha naloo sheego. ma 1,000 sano kadiba, ma 20,000 sanaa, ma wakhtigeeda ha naloo sheego. nebigaa la weydiiyey. yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebi maxamedow can isaacati, qiyaamadii bay ku weydiinayaan xaggeeda. ayaana bay ku weydiinayaan goormuu ahaaday, mursaaha qotominteedu ama qotonsigeedu,
istaajinteeda iyo sugiddeeda iyo qotominteedu goormo waay goormaa la qotominayaa waa istaag waa istaajin waay goormay dhacaysaa baa laga wada waxaa la yidhi marka taasay ku weydiinayaan ee fiima maxay dhexdiisa ayaad ku sugan tahay anta adigu min dikraaha sheegiddeeda maxaad kaga dhex sugan tahay yani maxaad ka sheegi kartaa waay maba haysidba ma taqaanidba kama warhaysid maxaad ka sheegi kartaa marka fiima maxay dhexdiisaad anta adigu ahaatay maxaad ku dhex sugan tahay min dikraaha sheegiddeeda way yas'aluunaka kaannaka xafiyun canha wa sidii adigoo garanayoo kale kuu weydiinayaan xogna kama haysidoo qiyaamadu goortay dhacayso waa cilmi ilaahay khaas leeyahay malag muqarabana looma sheegin nebi mursal ana looma sheegin qur-aanku waa in badan buu masaladaa ka hadlaa qiyaamada wakhtigeeda ilaahay baa qarsaday markay dhacaysana samaawaadka iyo dhulalka iyo makhluuqaadka dhan way ku culus tahay thaqulat fi samaawaati waalardi laa ta'tiikum ilaa bagta waay kada unbay u imaaniyo xilli aan lagu talagashanayn mooyaane oon laga foojignayn mooyaane wax wakhtigeeda ilaahay sii sheegay maba ahaba ilaahay baa qariyey tabaaraka wa tacala saas daraaddeed ayaa yiji malakul jibriil markuu nebiga sal alla alay wasalam weydiiyey akhbirnii can isaaca bal maxamedow qiyaamada iiga waran wuxuu ku yidhi ma lmas-uulu canha biaclama min asaa'il kan la weydiinaya oo muxameda ugama xog ogaalsana ugamana aqoon roono ka weydiinayo jibriil ah meelay jibriil ay nebi maxamed ay garan waayeen yaa garan kara wa saas daraaddeed waxaad garan kartaan sheekada la yidhaahdo 1,000 sano iyo shii yaa 1,000 sano waa dhammaadeen shii baa laaban warkaasi war jira ma aha ayib marka fiima anta min dikraha sheegiddeeda maxaad kaga sugan tahay way xusideeda ilaa rabbika rabbiga xaggiisa ayuu ahaaday muntahaaha dhammaadkeedu cilmiga qiyaamadu goortay dhacaysa iyo saacaddu xagga rabbi buu ku dhammaadaa cid alle ka sokow garanayso wax ka sheegi kartana ma jirto waxa la sheego oo ay waxyigu ka hadlo kitaabka iyo sunnada iyo nebiguna aada u faahfaahiyey waa calaamaadka lagu garto inay soo dhowdahay laakiin exactly wakhtigay dhacayso wax sheegi kara ma jiro inamaa anta adigu nebi maxamedow mundiru man cid mid u digahaya unbaa tahay yakhshaaha qiyaamo saacadda ka baqaysa adigu shaqadaadu ma aha inaad qiyaamada wakhtigeeda u sheegto looma dirintaa laakiin keliya waxaad uun digay yaad u digaysaa cidda qiyaamada ka baqaysa yakhshaaha baqaya qiyaamadaas iyo imaanshaheeda iyo cabsideeda dadka qaba ayaad u digaysaa digniinta nabigeennu sal alay wasalam dadka uun khaas kuma ahayne laakiin waxaa laga wadaa digniinta nafciga leh ee ruuxa loo sheegay uu intifaacsanayo waa dadka qiyaamada ku talagashan cabsideeda qaba waxay la mid tahay oo kale inamaa tundiru man ittabaca adikra wa khashya araxmaana bilghayb digniintaada nafciga leh ee la qaadanayo waa dadka uun dikriga ilaahay iyo qur-aanka raacsan allana ka baqa dadkaasaa intifaacsanaya kuwa kale waa la gaadhsiin laakiin ma intifaacsanayaan waa kaannahum waaba iyagoo yowma maalinka yarawnaha saacadda ay arkayaan lam yalbathuu aan nagaanin adduunkii aan ku nagaanin ama qubuurtii ama labadoo isku dar ilaa cashiyatan galab mooye gelin dambe aw amase duxaaha barqinkeedii ama gelinka hore mooyaane markii la soo saaro oo bannaanka la keeno oo la yidhaahdo war inteebaad adduunka ku noolaydeen waxay leeyihiin ma gelin horaan joogno kolley maalin dhammaystiran maba ahayne talo ma gelin horay ahayd mise gelin dambay ahayd cashiyada waxaa la yidhahda duhurka laga bilaabo ilaa qorax dhaca duxaana waxaa laga wadaa hadda waabarka laga bilaabo ilaa maalinka bartamaheeda ilaa yani waxa weye maalinka niska marka waxa weye gelin horiyo gelin dambe iska dheh sababtu waxay tahay adduunkani waa gaaban yahay inuu gaaban yahay xaqiiqadeedana waxaa la arki marka laysa soo saaro qabriga muddada lagu jiray iyo adduunka markii muddadii la joogo dhan haddii laysu geeyo war inteed joogtay lagu yidhaahdo waxaad leedahay kolley maalin ma dhannayn war ma 10 beri bay ahayd maya war maya waxa weye maalin xataa ma dhannayn sidaas wa waxaa marka la leeyahay war wax isaga dhanba markii laysku dardaro maalin gelinkeed inuu dhan yahay aadba ka shakin doonto maxaad marka aakhiradaada uga dooran maxaad jannadaada uga dooran maxaad isu lugoyn maad ayada dadaalka iyo mudnaanta siisid waa kaannahum waaba iyagoo yowma maalinka yarawnaha ay arkayaan saacadda qiyaamada
lam yalbathuu aan nagaanin adduunkii iyo qubuurtii iyo aan ku nagaanin ilaa cashiyatan gelin dambe mooye aw amase duxaaha gelinkaa dambe barqinkiisii iyo gelinkiisii hore mooyaane maalin gelin hore mise gelin dambe labadaasay ku shakinayaan bimacnaa adduunkani qiimana ma leh waana gaaban yahay waa hada wabillahi towfiiq وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم aatana waxaan uga gudbaynaa qaybihii su'aalaha ahaa wixii aad soo qorteen waxaan ka gaarnay insha Allah taala inaan ka jawaabo naam بسم الله الرحمن الرحيم جزاك الله خيرا شيخ halkan waxa jira su'aalo dhowr ahay dadka ku xiran page-ka masjidka sigiska ay ku soo direen su'aasha koobaad waxay leedahay Sheekh Maxamed waan ku salaamay waxaan ahay arday waxaan ku noolahay meel hostel ah waa meel boarding ah jiif ah culimaduna waxay noo sheegeen in salaada jumcada aysan ku waajibaynin wax ka yar 40 qof qolan waxay yiraahdeen 13 ruux marka sideen ugu baxnaa khilaafka maxaa igula talin lahayd ma duhur baan tukadaa mise jimca ayaan tukanaa barakallahu fiik bismillaahir rahmaanir rahiim su'aashaasi waxay khulaasadeedu tahay tirada ay jumcadu ku guntanto waa intee waa mas'ala khilaafiye way shaafiiciyada iyo xanaabiladu waxay qabaan 40 ruux oo deegaanka ah ka yar jumca kuma guntanto maalikiyaduna waxay qabaan 12 ruux iyo imaamkay qabaan xanafiyaduna waxay qabaan 3 ruux ayay qabaan 3 ruux hadii la helo way tukan karaan muxuu ahaayay imaamkii hadii la helo way tukan karaan jumcada mas'aladaasi khilaafka fuqahada marka laga tago daliil cad oo xadiis nabi ah oo tiro go'an oo aan la dhaafi karin sheegayay ma jiro axaadiista ku soo aroortay 40ka oo shaafiiciyada iyo xanaabiladu cuskadeen kulligeed waa daciif bishahadati culamaa shaafiiciyya muhaddisiinta shaafiiciyada laftooda ayaa buxuus dheer ka qoray sida Suyuuti oo kale nihaayadana wuxuu yiri wax xadiis oo ku asaxay 40 ka ma jiro wakadalika maalikiyada 12ka xadiis Bukhari ku yaalay daliishanayaan nabiga khudbada u taagan saxaabadu safartii markay arkeen waa kuwii ka kala tagay oo yaacay aayadu ku soo degtay muxuu ahaayay 12 baa ku soo hadhay ayada lafteeda sax xadiisku waa sugan yahay laakiin 12 ka yar inay jumcadu ku asaxayso kuma cadda inay ku asaxaynin kuma cadda sidaas daraadeed madhabka xooga badan ee marka adilada la fiiriyo xooga badan waa madhabka xanafiyada iyo qoliyo ka agdhow oo dhahaya marba hadii jamaaca la helo jumcadu waa ku asaxaysaa jamaacana waxay ka bilaabataa 3 iyo wixii ka badan muhaqiqiinta ahli xadiidka in badan oo kamidna madhabkaasi rajaxayaan waana sida xooga badan waay laana fariidadan oo ilaahay waajibiyay oo faraa'ida diinta kuwa ugu muhiimsan kamida waxaan daliil loo haynin in lagu meesha lagaga saaro la yiraahdo in tira inta leeg nas cadna marka aan loo haynin iyada lafteeda ishkaalkeeda leh saas daraadeed hadaba 3 gaadhaan iyo tira ka badan meel jumcada iyo jamaacadka loogu talagalayna aad heli kartaan tukada jumcada tukada isu khudbeeya kadibna tukada naam jazakallahu khayran su'aashan kale waxay leedahay gabar baa soo qortay waxay leedahay sheekh waxaan rabaa inaan ka faa'iideysto bisha Ramadaan marka ma isticmaali karaa dawada caadada dib u dhigta si uusan Ramadaanka iga kala go'in ama soonkiisa mas'alada dumarku Ramadaanka markuu soo galay ma isticmaali karaan daawada caadada joojisa ama dhiigga caadada baajisa ama dib dhigta jawaabteedu waxa weeye waa sax way sameyn karaan hal sharti bay leedahay daawaday isticmaalayaan inayna caafimaadka dib u geysanay arintaana dhakhaatiirta kulli kala tashanayaan maxaa munaasiba maxaa yeelay wax diidaya lama hayo mid labaad waxay ka sugan tahay Ataa ibn Abi Rabah taabiciga jaliilka ahaa
ayay ka sugan tahay biisnaadin saxiix in muxuu ahay waqtigaas taabiciinta waa la isticmaali jiray waxa la isticmaaloon baa kala duwanaan jiray way ka sugan tahay cabdulaahi ibnu cumar saxaabigana way ka soo aroortay laakiin waxa way waa daciif saxaabiga kama sugna laakiin taabiciga way ka sugan tahay saas daraadeed waa la isticmaali jiray lamana inkirin culimada maanta joogtana in badan oo kamid waxay leeyihiin mushkilo male hal midun baa laga taxadari gabadhu daawada isticmaalayso ee dhiigga caadada ay ku dibdhigayso inaysan caafimaadkeeda dhib u geynin ramadaanka waxaa la mid ah xajka kale markii xajka galayaan oo kale suusan xajku uga kala go'in way isticmaali karaan si ay acmaasha xajka u dhameystaan sharti inaysan darar iyo dhib uusan u geysanin caafimaadkooda wallahu aclam jazaaka allahu khayran saa'ilkan kale wuxuu leeyahay sheekh waxaan joogaa magaalada muqdisho masaajidda magaalada aad bayna u badan yihiin xilliga suxuurta waxaa dhacda aniga oo suxuurta ku guda jira in masaajidda qaar laga aadaamo qaarna dib u dhigaan aadaanka marka ma kan horaan ictimaadaa oon raacaa mise kan dambe masaladaasi waa masalo runtii dhib badan wadamada inta badan dowladaha ay ka dhisan yihiin muslimka aadaanka xilli go-an baa loo sameeyaa laakiin wadamada inta badan aan masaajidda la nadaaminin masaajidu marbu iska aadaamaa waana mushkilo runtii jirtaba halkan inugu haysataa lafteeda maxaa la samaynayaa xaaladaasoo kale ruuxa masaajidda midka uu isleeyahay waa ugu waqti ilaalin fiican yahay oo waqtigiibuu ku aadaamaa muxuu ahaayey salaada ku tukadaa masaajidka ugu kalsooni badan yaho isleeyahay masaajidkaasaa waqtiga ilaaliya kaasuu aadaankiisa ictimaadayaa isagaasuu ku afurayaa isagaasuuna suxuurta ku joojinaya haddii aadaankii isaga qasmo oo xiliyo kala gedisan ay masaajidii aadaamayaan xalna markaa loo waayo wallahu aclam jazaaka allahu khayran saa'ilkan kale wuxuu leeyahay assalaamu calaykum sheekh maxamed waan ku salaamay ilaahay ha ku barakeeyo waxaa jirta gabar walaashay ah oo qabta cudurka suuxdinta dhakhtar baana daawo u soo qoray dhakhtarkiina wuxuu yidhi dawadan yaana laga kala goynin marka sheekh ramadaanna waa lagu jiraa marka maxaan samaynaa haddii gabadhu daawadu u socoto suuxdinta loo siiyey isla markaana haddii daawada joojiso dhakhaatiirtu ay leeyihiin xanuunkaa qabanaya daawadeeda ha iska wadato hana iska afurto hadhow haddii ilaahay caafiyana ha qallayso faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhra waa shareecadeenna waa shareeco fudud axkaamteeduna way fududdahay shaygii asalba fududaa haddana waxoogaa culaysa hadduu galo way sii fududaynaysaa marka iska afurto gabadhu daawadeeda ha qaadato hadhowna ha qallayso goortii ilaahay caafiyo tabaaraka wa tacaala allahu aclam jazaaka allahu khayran saa'ilkan kale wuxuu leeyahay sheekh anoo sooman ayaa waxaa la iga baaray cudurka corona oo tuuba ayaa sanka la iga geliyey kadibna dhiig baa iga yimid marka soonkayga miyuu jabay mise waan sii wataa haddii aan caloosha haddayna wax gaadhin oo caloosha wax lagu shubay ama gaadhay uusan jirin keliyeeta tuubada sanka lagaa geliyey oo dhiiggu sanka kaa yimid soonka jabin mayso laanna waxa weeyaan dhiigaga jidhka ka yimaada hadduu dhiig badan yahay baa muran ku jira oo sida toobinkoo kale uu yahay ama dhiig badanoo ruuxa jidhkiisa ka baxay ayaa laga murmaa ma jabinayaa soonka mise ma jabinayo laakiin meel yaroo ku xagtinoo ku gaadhay gor yaroo kaa yimid dhiig yaroo jidhka meel ka mida ka yimid ilig aad iska saarto dhiig ka yimid kuwa yaryarka ah soonka waxba yeeli maayaan wallahu aclam saa'ilkan kale wuxuu leeyahay sheekh waxaan weydiinayaa masaajiddii way xiran yihiin guryaha ayaan joognaa haddii aan rabo inaan tukado salaada taraawiixda ma kaga tukan karaa musxafka ama mobilka applicationka ku jira ee qur-aanka maadaama aanan xifdisanayn qur-aankii jawaabtu waa haa ruux hadduusan qur-aanka xifdisnayn oo uu doonayo inuu qur-aan dheer salaada ku tukado misxafka wuu ka tukan karaa ama qur-aanka hadduu mobaylkiisa ku jiro wuu ka tukan karaa arrinkaasina waxay ka sugan tahay umu lmu'miniina caaisha radia allahu tacaala canhuma
sida uu masaaxifta ku wariyey ibn abi daawuud uu masaaxifta ku wariyey kitaabulmasaaxif uu ku wariyey culimo kalena ay wariyeen waana ka sugan yahay umulmu'miniin caaisha sidaas daraaddeed wax dhiba ma laha haddaadan qur-aanka xifdsanayn misxafka waad ka tukan kartaa ama taraawiix ama salaad kaleba wallahu aclam jazaaka allahu khayran saa'ilkan kale wuxuu leeyahay waxaan joogaa ceel waaq soomaaliya sheekh allah ku xifdiyo su-aal ayaan rabaa inaan ku weydiiyo oo ah aabbahay waa qof da ah oo aanan soomi karin waxaan rabaa inaan fidyo aan ka bixiyo marka ma bisha oo dhan baan maalin walba mid miskiin quudiyaa mise hal maalin inaan wada quudiyo 30 miskiin baa igaga filan dadka soomi kari waayey ama xanuunaan rajo lahayn la soomi waayey ama da' darteed la soomi waayey fidyada laga bixinayo hal marna waa la wada bixin karaa bisha dhexdeedana waa la yaryarayn karaa raashiin bisil waa la bixin karaayoo la bisleeyey masaakiin waa loo qaybin karaa raashiin caydhiin oo iyagu karsadaan waa loo qaybin karaa intaasiba way bannaan tahay mushkilo ma leh hadduu ramadaanka in yar u bixiyana wuu heli karaa haddii uu siduu anas ibn maalik samayn jiray khaadimkii nebigu sal lla lay slam kama fii saxiix albukhaari siduu samayn jiray hal mar buu intuu masaakiin isugu yeedho bisha aakhirkeeda ayuu u qaybin jiray muxuu ahaayey raashiin u qaybin jiray marka intaasoo dhan way bannaan tahay kii la sameeyaba dhib ma leh jazaaka allahu khayran saa'ilkan kale wuxuu leeyahay sheekhana culimmada qaar waxayna dhaheen ma bannaana marka ruuxu uu sujuudayo wejigiisa iyo gogasha uu ku tukanayo inaanan loo dhaxaynin oo maro aysan wejigiisa saarnayn haddeertaan waxaa naglu laasimiyey maaska inaan xiranno oo ah afxirkan hadda koronaha laga gaashaanto marka anoo maaska xiran ma ku tukan karaa culimmada qaar baa jira sax dhaha ruuxu markuu sujuudayo wejigiisa iyo meeshuu ku sujuudayo waa inaan loo dhaxaynin laakiin waxaa sugan hadday duruufi timaado in marada aad qabto ama shay aad qabto wejigaaga iyo dhulka inay u dhaxayn karaan waana xadiidka bukhaari iyo keyrkii ku sugan saxaabadu ridwaanullaahi calayhim markay meel kulul ku sujuudahayaan maradooda ay qabaan ayay dhulka isaga xijinayeen calashaani kulaylka ayayna wejiga dhigi karaynin marka duruuf baa keentay xataa haddii la yidhaahdo xaaladaha caadiga lama ogola xaaladan oo kale duruuf baa keentay haddii marka cabsi ay timaado xanuun baa faafaya hadday timaado oo xanuunkii waxaa laga yaabayaa gogasha in laga qaado dadkii kala qaadaan haddii laga yaabayo cabsidaasi ay timaado waa ruqso sidii kulaylkii laga baqaayo kale imaan kartaa saxaabadu ay maryahooda ay dhulka isaga dhigayeen marka wax mushkila wax dhiba uma arko in ay muxuu ahay ruuxu uu maskaraatiga baashan muxuu ahay afka lagu xidho isagoo qaba inuu sujuudo midda kale meesha laga sujuudo ma aha muxuu afka ma aha baashu afkay qarinaysaa meesha laga sujuudo waa jabhada waa halkaa wejiga ah iyo sanka labadaa in dhulka la dhigo waa laga yaaba inay sanka qabato laakiin wejigaa koreete ma qabanayso marka sujuudda laba gooroba wax dhiba male wallahu aclam jazaaka allahu khayran saa'ilkan kale wuxuu leeyahay lacagta aad siiso walaasha ama walaalka ma u niyan kartaa zaka xitaa iyadoon la gaarin xilligii zakada waa laba masalo isa saaran masalada koobaadi waxa weye zaka aan wakhtigeedii gaadhin ma la soo hormarin karaa masalada labaadna waxa weye dadka qaraabadaada zakada ma siin kartaa midda hore jawaabtu waa haa sakada wakhtigeedii iyadoon la gaadhin waa la sii bixin karaa xadiid xasana ku sugan oo nabigeenna ka sugan sala allahu calayh waalihi wasalam waana madhabu طaa'ifa min ahli اlcilmi sidaas daraaddeed sakada wakhtigeeda in laga hormariyo way bannaan tahay qaraabadaada sakada ma siin kartaa jawaabtu waa haa hadday masaakin yihiin fuqaro yihiin ay yihiin maalan daymaysan yihiin haddii la haysto la fakinayo waakada hadday sideedii sinfi ama 8 qaybood ee suuratu tawba ilaahay zakada uu siiyey ugu qaybiyey hadday soo galaan qaraabanimadu u diidi mayso bal qaraabanimaday xaq ku sii yeelanayaan oo qaraabanimadu ruuxa ma qadisee waxay siisaa muxuu ahaay iyagayba sad siisaaba qaraabanimadu waxay siisaa waxay keentaa yani mudnaan khaasay ruuxa siisaa allahuma waxaa dood badani ku jirtaa labada waalid oo culimada badankood ay qabaan yani asalkii ku dhalayeed ka soo jeeday iyo faraca adiga kaa farcamaya kaa baxay
labadaa lama siin karay culimmada badankood qabaan. sababta waxay leeyihiin kuwaasi xuquuq bay kugu leeyihin, xoolahaaga wax ku leeyihin. waalidkaana adiga xoolahaagaba isagaa kule, sida nebigu sal alla alay wasalam. ilmahaaga aada dhashay wixii kaa farcamayna eedee xuquuq bayba ku leeyihiin xoolahan. adigoo xoolo haysta in iyaguna qatanaadaan maba ahaba. marka waxaa laga baqayaa muxaabaad iyo sidaas daraaddeed labadaa marka laga reebo culimmadu u badan yihiin, inta kale walaalaha muxuu ahay adeerada, ilmadeerada, habaryaraha iyo abtiyaasha, qaraabada kale sekada waa la siin karayaa hadday ama masaakiin yihiin ama fuqara yihiin. 8 sinfi hadday mid ka mida soo galaan. wallahu aclam. jazaaka allahu khayran. su-aashan kale waxay leedahay, sheekh waxaan ku dhaartay dayn la igu lahaa inaan bixiyo, kadib ninkii deynta igu lahaa ayaa iga cafiyey deyntii, marka kafaaro gud miyaa la iga rabaa? haddii aad ku dhaaratay deynta lagu leeyay inaad bixiso kadibna ruuxiiba kaa cafiyey, waxba laguguma laha. lanna wax weye waxaan bixinayaa bimacnaa lahaanshihii baan gudayaa waay. haddii lahaanshihiiba meesha ka baxo oo ruuxiiba cafiyo, wax la bixinaya markaa ma jiro, marka wax kugu laasimaya ma jiro. wallahu aclam. jazaaka allahu khayran. sheekh saa-ilkan kale wuxuu leeyahay, ramadaan kariim sheekh, aad ayaan kuu salaamayaa. waxaan ku weydiinayaa, salaada cisho hortay haddii laga baxo oo taraawiixda la galo, cishihii la igu lahaa ma ku xihan karaa imaamkii taraawiixda tukanayey? tan labaadoo daba socoto waxay leedahay, meelaha qaarkood waxaa laga tukadaa 23 rakaco ee taraawiixda, meelaha qaar ama masaajidda qaarna waxaa laga tukadaa 11 rakacadood. marka teebaa sax ah oo waafaqsan sunnada? su-aasha hore jawaabteedu waxa weeye muxuu ahaayey maxay ahayd? salaada cishaha taraawiixda haddaan soo gaadho iyadoo lagu jiro salaadii cishahana laygu leeyay ma ku xidhan karaa? jawaabtu waa haa. gaayatu ma fi lamri waxa weeyaan uun salaad waajiba adoo tukanaya ayaa waxaad ku xidhanaysaa mid sunno tukanaya, wayna bannaan tahay. sida nebiga sal lla alay waslam xadiistiisa ku sugan, mucaad ibnu jabal nebigu la tukan jiray salaada cishaha, kadibna wuxuu tegi jiray xaafadiisa masaajidka ku yaalla dadkii oon weli tukanin, markaasuu tujin jiray. isagoo sunnuu markaa tukanayaa, dadkuna waxay tukanayaan salaadoodii cishaya waajibka ahayd. marka sida saxiixa way bannaan tahay, yani iqtidaau muxuu ahay muftarid bimutanafil, mid sunno tukanaya inaad ku daba xidhato dhex male. marka adoo cishihii kuu laaban yahay haddii taraawiixeedoo lagu jira aad timaado waad ku xidhan, kadibna markay muxuu ahay aada dhammaysataa taraawiixda la xidhani macna. masalada labaad oo ah tirada la tukado taraawiixda 11 23 muxuu ahay tiradu waa intee? asalka horta wax weeye salaada habeenkii, taraawiixdu waa salaada habeenkii. salaada habeenkii asal ahaan tiro go-an ma leh, waa ijmaac, waa laysla ogolyahay. salaatu leyli mathna mathna buu nabi sal lla alay slam, salaadu habeenku waa laba, markaad waabarka ka baqdo witirka la imow, habeenkii o dhan baad marka laba wadi kartaa. masaladana ijmaac bay kusoo guurinayaan a'imo fara badan. salafka markaad fiirisana waxaa muuqata in ay qolo walba siday qaateen aynan isku inkiri jirin. yani waxa maalan shaaficiyada iyo xanaabilada iyo 23 bay qaateen, 20 salaadii iyo 3 witir ah. qolyo 39 bay qaateen, qaar way ka badiyeen. marka cinda salaf mas'alo la isku inkira ma ahayne mas'alo wajhada nadarku isku khilaafsan yihiin, qoloba si u qaateen bay ahayd, dhibna ma laha haddii aad tukato inta, haddaad yarayso, haddaad badiso. laakiin markii xadiidka bukhaariga ku yimid, caaisha markii nabiga weydiiyey sal lla lay wasalam, markii la weydiiyey salaadiisu sidee bay ahayd habeenkii, waxay tihi ramadaan iyo keyrkii toona muusan ka siyaadin jirin 11 ragcadood. laakiin waxay ku dartay 11 ragcadood wuxuu tukan jiray 4 ragcadood. laa tas'al can xusnihinna wa tuulihinna, wuu dheereyn jira, wuu qurxin jiray nebigu sal lla lay wasalam. markaasuu haddana 4 kale tukan jiro, dheereyn jiro, qurxin jiray, markaasuu 3 tukan jiray nebigu sal lla lay wasalam. marka haddaad qiraa'ada dheeraynayso oo qiraa'o dheer ku tukanayso, 11 tuko, 13 riwaayad baa ku soo aroortay. haddaad qiraa'ada gaagaabinaysana inaad tirada badiso, yani wax weeye 23 iyo ka badan iyo ka dhigto mushkilo ma laha. marka kulli dalika fi lamri saca in sha allahu tacala, wallahu aclam. intaas ayaynu insha allahu tacala ku ekeynaynaa su-aalihii idinka soo arooray eed soo qorteen. ilaa iyo kulan dambe intaa iyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.